marka waxay batagaysaaba ninkii dhoofku yimid baa geeridu dhibaysaa waqtigii dhammaayo wuu dhaqaaqi doonaa dhulka sow anigu malihi gumaysigu dhacayaa geeridu dhibaysaa abwaan geele ismaaciil geele faruur oo waxaa laga hayaa erey ay ka mid ahaayeen dhulka lama ammaanaysan karo ereg sidiisii 4 taako hadda waa 4 taako layskuma ogola aag yar oo la eg israa'iilba falastiinta may kala irdhayseene waxa oo foreenkaas ku riday waa ildu fore soomaaliyey hadday talana hortaalaa dhulku hadda waa dhulka yaa hadda dhulka muuse male isaaqna male habargidirna male abgaalna male cid lama jirto irir xataa soomaali xataa ma laha soomaaliyaa leh haddaba waxaad ogaataan xasan shiikh dalka ma laha dani ma laha muuse biixi ma laha cid lama jirto waxa dhalinyarada hadda joogta xataa male waxa iskale jiilka soo socda ee soo koraaya ayaa iskale marka dhulkan wuxuu u baahan yahay dad dhiiga u hora sidii sayid maxamed cabdulla xasan oo kale sida sayid maxamed cabdulla xasan oo kale axmed guriyey oo kale sheekh xasan barsan oo kale dadkaasuu u baahan yahay dalkan uma baahno nin dhuuna qaato ah dhadhan raaca danihiisa kaliya lee fiirsanayo ya wadankan uma baahno dalkan uma baahno mana u baahnaa karo mana ku noolaa karaba waxaan habeen iyo maalin hayayda iyo waawareyda aan u hayaa waa dareen wadaninimo ee igu jira ee i dhaqaajinaya dhiigga i dhaqaajinaya aniga wadanka guri ku malihi qol ijaarahan ku jiraa haddana waxa i dhaqaajinayo ee iga keenayo shuxuurta iyo wadaninimada iga keenayo in xeebtiisa ay lacag gato oo hal shakhsi oo gato oo dadkii ay oo lahayo dhaxalka u lahayo ya badaasaa lagu diidan yahay inaad kalluunka la soo baxdo dekeda xamaali xataa ma laga helayo waxaa ka xamaalo doona amxaar iyo oromiya ogaada somaliland hadday hawshu dhanaanaato oo dhamac iyo rasaas ay huri weyso dhulku sow anigu malihi marka waxay batagaysaaba ninkii dhoofku yimid baa geeridu dhibaysaa waqtigii dhammaayo wuu dhaqaaqi doonaa dhulka sow anigu malihi gumaysigu dhacayaa geeridu dhibaysaa